dowladda Australia ayaa waxay sheegtay inay joojisay duqeymaha xagga cirka ee ay ku hayso kooxda Daesh ku sugan wadamada Ciraaq iyo Suuriya. ilaa 6 diyaaradood oo kuwa duqeymaha ah ayay dowladda Australia ay sheegtay inay dib ugu yeedhay wadankeeda inkastoo diyaaradaha kormeerku ay ku sii sugnaan doonaan wadamadaasi. muddo 2 sano ah ayay ciidamada cirka ee Australia ka qayb qaadanayeen duqeymaha lagu hayo Daesh iyagoo qayb ka ahaa isbahaysiga caalamiga ah ee ka dhanka kooxda Daesh. wasiirka difaaca ee Australia ayaa waxay sheegtay in go'aankoodaasi ay ku saleeyeen maadaama dhawaan ay dowladda Ciraaq ku dhawaaqday inay guulo ka gaadhay dagaalka ka dhanka ururka Daesh. waxa kaloo ay sheegtay in tallaabadaasi ay qaaday ay wada tashi kala yeesheen dalalka adduunka iyo Ciraaq. ra'iisul wasaaraha wadanka Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa 2 toddobaad ka hor waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay gebi ahaanba la wareegeen xuduudaha Ciraaq iyo Suuriya u dhaxeeya ee ay ku sugnaayeen ururka Daesh.